markii dambana lagu nasaqay oo la dhexgeliyay xeerka maxkamadda qodobkiisa 8 qodobkiisa saddexaad ee AAB oo kale ah ee dakhliga dowladda dhexe siiso degmooyinka oo ah qadarka cashuuraha kastamada ee 10% dakhliga dowladda dhexe siiso degmooyinka ee ah qadarka ay ka helaan miisaaniyadda guud ee loo yaqaan kabka oo dhan 12.5%. Heerkaas waa heer lixda gobol ay baahidiisa ka siman yihiin meel kastana lagu weydiinayo sidaa awgeed waa inay ka joogno baahiyaha iyo dhowrka bulshadeena ka imanaya maadaama iyaga ay mudano markaa waxaan soo jeedin lahaa in qodobka lagu daro qodobka labaad oo aan jeclaan lahaa inaan sadededgeleyo waxa weeye oo xildhibaan cabdikariim baa soo jeediyey in xeerka shaqaaleed weli soo celiyey waa muhiim in dowladdiisa lagu soo daro xeerka qodobka saddexaad ee aaminsanahay inay muhiim ahaan lahayd in lagu soo daro sessionkan waa xeerku ay muhiim tahay inuu qabto xeerka isku eedado ee xeerka dalka dalka oo ah xeerka lagu maamulo maxkamadeena ama cadaaladdeena xeerkaas waa la shaqaali karaynin xaalkan mustaqbalkeena iyo bulshadeena maartay aqoon ahaan iyo caqli ahaan iyo cilmi ahaan xeerka dalka